بسم الله الرحمن الرحيم. halkan ubaad health cooking weeye asxaabta ubaad health cooking soo dhawaada dadkii nala jooga asxaabteeda waa mahadsan yihiin dadka cusubna subscribe like share. waxaan bilaabaynaa ka hadalka daawada dadku gabdhuhu isku cayiliyaan gabdhaha qaarkood baa is cayiliya khatarta ay leedahay daawada la isku cayiliyo inkastoo kaniiniyo badan iyo sharoobooyin badan yihiin maanta waxaan kasoo qaadanaynaa mid kamid ah baan kasoo qaadanaynaa midaas waxaa la yiraahdaa dexamethasone maxaa tahay yaa loo qoraa see loo qaataa cuduradee loo qoray marka hore maxaa looga hortagaa maxay leedahay dhib hadduu qofku in badan qaato maxay ku keenaysaa oo shida ah cudurada loo qaatose maxay tahay. Dexamethasone waa daawo maxaan ku radaa xanuun baabi'iye ah ama maxaan ku radaa allergic ah daawooyinka allergic loogu talagalo weeye laakiin oo cudurro badan loo qaato adigu muhiimada koowaad intaas waa daawo anti-inflammatory antihistamine la yiraahdo weeye laakiin cudurro badan loo qaato oo dhakhaatiirtu u qoraan cudurrada loogu talagalay maxaa loo qaataa waxaa loo qaataa arthritis-ka waxaa loo qaataa hormoonada qaarkood difaaca jirka haddii uu maxaan ku rahdaa uu si yahay maxaan ku allergic reaction haddii jirka wax allergic ka jiraan maxaan ku rahdaa xaalado skinka ku saabsan dhibaato indhaha oo kale ah qofka neefsashadu ay ku dhib ku tahay mindhicirada xanuuno ku dhaca haddii jiraan kansarka qaarkood waa loo qoraa manaaba arka qof loo qoray rheumatismta iyo cudurada la xiriira sambabada cudurada la xiriira cudurro tirada ka batay baa loo qoraa dhowr cudur baan ka soxata tuberculosis baa kamid ah waxaan ka wadaa TB-da baa kamid ah maskaxda oo qofka barartaa kamid ah antarlan galaan qanjir la yiraahdo oo kaliyaha meesha ka sareysa saaran baa kamid ah marka asxaabta waxaan fiirinaynaa inkastoo cudurro badan loo qoro bal 3 cudur baan ka fiirinaynaa cuduradaas tirada badan mid kamid ah waxaan soo qaadanaynaa cudur la yiraahdo lupus disease oo maxaa tahay waa ilaahay qadartiisa qofka unugyadiisa cadcad difaaciisii iyo waxa islaynaya iyo kuwii kale oo jirka red blood cells ka islaynaya unugyadii iyo salkii jirka baa ilaahay qadartiisa ilaahay isku dirayaa markaas qofka difaaciisa jirka iyo waxa isku jeensanaya iyo kuwii difaaciya iyo kuwii wax soo weerarayay baa islaynaya cudurkaas waa cudur khatar ah oo aad iyo aad maxaan ku rahdaa u dhib badan waxaana la yiraahdaa SLE baa la yiraahdaa marka la soo gaabiyo lupus disease-ka wuxuu ku dhacaa kala goysyada ku dhacaa skinka ku dhacaa kaliyaha ku dhacaa maxaan ku rahdaa selka waniga haduu lahu isdirirayaa maskaxda effect gareeyaa wadnaha iyo sambabada qofka jirkiisa waxay noqonaysaa jaamo kala gadgadisan buu noqonayaa qofka jirkiisa sida wajiga daamanka dhabarka shafka gacmaha qaarkood faraha korkooda waxay noqonayaan wax kala gadgadisan bay noqonayaan cudurkan kale oo isaguna la yiraahdo marka muxuu yahay cudurka kan intaanan ka bixin wax daawo ah cudurkan ma leh laakiin daawadan baa caawiso iyo daawooyin kale loo qoraa wax daawo uu leeyahay laakiin daawadan la qaadanaya way caawinaysaa waxaa lagu fiiriyaa in qofka laab la geeyo oo la fiiriyo cudurkiisa inuu qabo cudurkan waa chronic qofku in badan buu qabayaa ama wuuba la noolaanaya lifekiisa la noolaanaya subxaanallah daawadana loo qoraa ay dadku isku cayiliyaan bal maxaa u geeyay waxaa kaloo kamid ah cudurkan la yiraahdo psoriasis mid la dhaho waa isaguna kamid ah psoriasis oo maxaa tahay isaga la turkiisu waa qayb wuxuu ku dhacaa maqaarku ku dhacaa ama skinka buu effect gareeyaa ilaahay qadartiis salkii jirkaba isaguna 10 jeer in ka badan buu laba laamayaa sida normalkeed buu ka tira badanayaa markaasuu maxaa ku rahdaa si aad u koreeyaa wax aad u koreeya weeye waa cudur khatar ah meeluhu ka miqdo waxaa kamid ah suxullada looyada maxaan ku rahdaa madaxa dhabarka jeegada waxay noqonaysaa qolof bay noqonaysaa qofka jirkiisa dhan baxtay qolof noqonaysaa kii hore waxaa jaamo gududan laakiin kan wuxuu noqonayaa wada qolfo wada noqonayaa saas oo meel walba qolof qofka ka kacayso noqonayaa oo jilif ah ba qofka noqonaysaa subxaanallah cudurkan kale isaguna la yiraahdo waxaa kamid ah crop disease baa kamid ah wuxuu ku dhacaa qaybta sare oo airway ku dhacaa special ilmuhu kan u badan yahay waana cudur khatar oo ilmihii dhan neefta ka xiraya ama qofka neefta ka xiraya si fudud buuna cudurka kan ku fidaa
waa hawada daqiiqad buu ku fidayaa. maxaan ku irahdaye haddii qofka aad salaantiis hagaraysaan, dhunkashada, gacantoo la iska salaamo, bustaho la isla hoodo, meel qof taabto aad taabatid, cudurkan waa cudur khatara. haddaba kaniinigaanow sidee lagu isticmaalaa? kaniinigan gaajo laguma cuno, dadka loo qoro dhakhaatiirtu u qorto waa inay cunno badan iyo caano ku cabaan si ay uga hortagaan inay calooshii maxaan ku rahda ay dibirto. waa inuu biyo badanna ku cabo ilaa 300 oo ml adigu galaash buuxa iyo bar baa la rabaa kaniinigan markiiba lagu liqo. waqtigii la qaatay waqtigiisa in la qaato time to time. haddaa subax cuntid subax maxaan ku rahdaa cun 2 saac, haddaa cuntid 2 saac habeenimo, 2 saac subaxnimo, waqtigiisa ha ka hormarin. haddaa istiraadid jooji ma joojin kartid, waa inuu dhakhtar kaa joojiyo. adiga iskama joojin kartid, iskamana bilaabi kartid, mana iska dayn kartid. daawada dooska inta dhakhtarku ugu talagalana ma joojin kartid oo kama yareyn kartid inta kamana badin kartid. waa daawo aad iyo aad iyo aad iyo aad u khatar badan weeye. bal maxaa dadka ku imtixaamay gabdhaheena? haddaba daawo kasta waxay leedahay side effect wax la dhaho bay leedahay ama dhibaatay ka tagtaa. dhibaatada ay daawadatan leedahay oo caadiga oo iyada markii la cuno ay qofka ku rido maxay tahay? daawo kastana way leedahay. waxaa kamid ah qofka nervous noqda, qofku halka tunka ah maxaan ku rahdaa oo wax ka soo baxaan oo wax dheer ka soo baxaan, hilib jira, maxaan ku rahdaa isku buuq, maxaan ku rahdaa depression. waxaa kaloo kamid ah maxaan ku rahdaa aragtida indhaha baa xooga isbedesha oo qofkii si kala noqonaysa, fakarka qofka isbedelaya, kaadadiisa oo qofka yaraanaysa, indhaha xanuuna, dayaan ama wareer baa kamid ah. dadka qaarkood waxaa lagu arkaa qalal baa lagu arkaa in qofku qalalo baa lagu arkaa. ganaca ama bankreaska midka la yiraahdo baa isaguna jirada. wadnaha oo xoog u garaacma ama aayr u garaacma, labadaasba waa lagu arkaa. qofka jirkiisa waxaa ku noqda biyaha baa qofka jirkiisa ku noqda iyo cusbada iyo waxaas oo dhan baa ku noqda. waa sababta dadka u buuranayaan oo aadka ugu cayilayaan weeye, oo qofku uu noqonayo qof aan normal ahayn. gacmaha qofka bararaya, waxaa bararaya kale maxaan ku rahdaa surka baa qofka bararaya. cusbada jirka, potassiumka jirka ilaahay ugu talagalay dhan baa iyaduna yaraanaysa oo eber noqonaysa. waxyaab la weeye dadku waxay maxaan ku rahdaa kaniiniga aan ku falayaan. dhidid fara badan baa qofka yeelanaya, shape-ka qofka dhan baa bedelmaya, caloosh baa bararaysa, lugihii baa soo dhuudhuubanaya, qaarka soo dhan baa weynaanaya, inta dambe oo dhan baa yaraanaysa. waa gartay. daawadatan markaad qaadanaysid ha ku qaadan daawo kale. dhakhaatiirtu waxay dhahaan daawo kale haddaa isticmaalaysid daawadan ma qaadan kartid. maxaa kamid ah ha ku qaadan daawo kale? haddii daawadan dhakhtarku kuu qoro antibiotic ma ku qaadan kartid hadduu dhakhtarku kuula qoro maahe. daawadata ilmaha la isaga joojiyo kulama qaadan kartid. waa daawadan waa daawo mucjiso ah oo aad iyo aad u khatar badan. waxaa kaloo kamid ah insulinta dadka sokorta qaba daawada kulama qaadan karaan. aspirin kulama qaadan kartid. ibuprofen daawada la yiraahdo xanuunada kuma qaadan kartid. kulama qaadan kartid. diclofenac midaan la yiraahdo iyaduna oo anti painka kulama qaadan kartid. haddii aad wax dhibaato isku aragto waxay ku leeyihiin daawadatan dhakhtarka horey u aado horey ugu orod bay ku leeyihiin. haddii qofku marka gabdhaha Soomaalidu oo iscayiliya wax waqti badan bay qaataan oo aad u tiro badan bay qaataan. hadduu qofku long time isticmaalo ama muddo fara badan uu daawadan isticmaalo maxaa laga arkayaa oo dhibaato ah? waxaa laga arkayaa iskiinkii ama maqaarkii qofka khafiif noqonayo, ama wadid in la khafiifiyey ama bur la fixiyo oo kale oo khafiif oo kale ah buu noqonayaa. ama isla qofkan fargeeto miyaanta la qaatay jirkiisa saa loogu xoqay baas dhahaysaa. jirka wuxuu noqonayaa wax khafiif noqonaya. maxaan ku rahdaa jirkan inuu daqiiqad u jeexmo waa iyaduna aad bay u fududahay. jirkaaga waxaa ku badanaya finanka, waxaa ku badanaya nabraha, waxaa ku badanaya wejiga kale, waxaa ku badanaya timo badan baa wejiga ku badanaya. waxaa gabdhaha ka khaldama caadada waqtigeeda ka khaldamaysa. waxaa kaloo ku dhacay waxaa kan la yiraahdo impotency, ama qofkii nin hadduu yahay ama naag uu yahay hawadii iyo waxaas dhan baa ka guuraysa, ama inuu qof guursado ama wax noocaas way ka tagaysaa. lugihiibaa ku dhuumaya, qofka lugaha dhuumaya. hormoonkiiba wuxuu noqonaya imbalance noqonaya oo hormoonskii qofka ilaahay ugu talagalay baa noqonaya. indhaha waxa ka galay waxa kan la yiraahdo cataract bahal la dhaho, isha cadaanka fuula baa ka fuulaya. qofku wuxuu yeelanayaa wejigiisa wuxuu yeelanayaa shape oo dayax ah ama weji oo ah buu yeelanayaa. daamankii waa bararaya, cunankii waa bararaya, markaas baranaysa. waxay u qabaan qofku inuu cayilayo. cayil sax ma aha, waa baruur quruna oo biyo jirkaaga ku raaga weeye.
haddii qofku dhaawac gaaro oo kale suuq ku biskooda way adag tahay oo si caadi u biskoonmayo burooyin baa qofka kasoo baxaya osteoporosis wax la yiraahdo ama lafa xanuun baa ku dhacaya waxyaab la weeye waxaa dhici karta gabdhaha Soomaaliyeed inay weligood cunaan 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano cunaan daawada tan waa daawo khatarteeda wadata daawo dhan khatarteeda leedahay haddii ay rabaan gabdhuhu inay iscaliyeliyaan ama qofka rabo inuu iscaliyeliyo ha qaato waxyaalaha carbohydrate ku badan tahay sida wax badan sonkor ku darso dufan badan cun hilib baruur ka dharag kuwaas aa almeena la qaatay nature hadaad adu rabtid inaad iscayilisid ama naftaada xudintid si normal isu cayili cunno badan cun oo carbohydrate ku badan tahay laakiin kiimika in isku cayilisid waa laga fiican yahay daawadan sida tooska wax loogu qoraa dadka kansarka qaba aniga hadda waxaan u soo joogay maamo kansar ku dhacay oo maskaxdeeda barartay baa loo qoray kaniiniga markaan arkay waa kaniiniga gabdhiis isku cayiliyeen weeye subxaanallah war gabdhaha Soomaaliyeed ama dadka iscayiliyow iska daay cayilku sidiisu waa faalxumo u yahay hadda cayilku waa cudur waaga hore baa loo malan jiray inuu fiican yahay si normal gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho dhuuban laakiin hadda waxay wada noqdeen dad iska wada cayilin iska baraaray intooda rabta weeye kulligood ma ahan waxa idin kula talinayaa intaynaan wax cunin ama daawo kiimika calooshaada idin gelin akhri daawada marka u horeysa akhri waxay ka samaysan tahay ama waxay side effect leedahay ama sida loo qaato ama hadaa muddo dheer isticmaashid long term wax la yiraahdo hadaa isticmaashid daawadaas maxaa ka soo gaaraya baa la rabaa inaad maxaan ku raahdaa aad ka fikirtid salaamu calaykum asxaabta ugu baalheerta cooking wacyi gelin ku saabsan weeye gabdhaha sida khaldan isu cayiliya salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh